kulanti waxaan u xiisaa dhamaantiin akhyaarta hawada naga daawanaysaa daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayo deeqa aadan muuse deeqa afro oo kamid ah fanaaniinta sida weyn codkooda maalada aad u tiro badan ay dhageystaan heesaheeda iyo sidoo kale fankeeda. deeqa ayaa dhawaan waxay soo saartay muuqaal video ah oo shacabka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogaan daafaha caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexdheliyay. Hadda waxaan leeyahay deeqa ku soo dhawaad marka koowaad TV-ga. dal mar walaal ma xasan tahay waan dhawahay waan kaaga mahadcelinayaa deeqa afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aad ay u hadal hayaan runtii waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad u soo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aad ka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii dal mar walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii أنا كنت لقلين سي أنا كنت لقلين بقولعي سي أنا كنت لقلين بالوضوي سي أنا كنت لقلين وكبحي هذا ما مركز نسوا نقولنا إن مركز هذا باب الرياكشن كي كان الشيء أما دتكو إن فكر محاد كعب سوا نقضي إن مركز تدوينه هاي كهرلين مقال كاس شكته إنه السخالة ضو بحي والله دقود قف بس بقوها الله dadkeena Soomaaliyeed waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim Ilaahay qofkii turjubaan Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqlisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda leedahay marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxa dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo aad madiina doonka loo soo diro leeyihiin dadka ku ciqaaba qofkiina marka dadka intooda badan oo talmarow inta cariiqsadaan beeradaan madiinta laga leeyahay waa maya madalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalida laga xiga waa maya ma dhaqan ba laga xiga waa maya hadaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anu taawan ka duwanahay subhanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqorti laaban dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd da waxaana leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahna adoonkii Ilaahayna laba dhaxgale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo iyo iska lumin deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan haato ama heesa ka horreeyay baahata iyagana maxaad ka leedahay thank you dalmar walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay heestan dadkii ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyeen waxay tahay waxa la yiri meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cudurdaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliya masaabax bay iga yihiin haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow nacajilad la igu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga noloshayda horta anigu media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin
laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxaa jirta videogaas dalmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxaa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii 2 indhood ba iska soo xireen baaskoolad madag hal midba baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta wiir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saas xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowgiina wuu damiyey cajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyey arrintii way ku jiraan xitaa leerkii ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaacayo ma jirto bilaash qof la iskaga hajabay ma jirto marka gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne ku garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arkay xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagoo rakarooni ku soo saarnay heesaha inta badan aan samaysta kafee yaraan soo shubtaa heest aniga la igu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen aan samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xirigelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timid sidaynu ognahay shaaciyadan westernka degantay waliba dalka Scandinavian-ka haweenkana xuquuqda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European-ka ama Scandinavian-ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hajabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta inay jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timid adigu haddii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacayay dadka Islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay baana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharcigan ka haystaa Swedish baanahay guriyada waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel uu u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yaryihiin intaas waxaan dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahant ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaam baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan hay baan bandhigaa fahanti waxa weeyaan taani igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa dega markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga baan u tagay hanjabaad ahayd weligayna meelahaas ku arka ma ilaahay lama kulansiiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxa anigu waa iska cafiyo waxa la ii dhiman waa cafiyo laakiin
wixii aniga hadda i record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabayay meel bay yaalaan taas adduunka hadda daa'irada waa cafiye xitaa idiga yeelayso qoladaas male sababtaa kuwii 2 sano kahor kuwii haddana waaba iska cafiyey wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagayo ama la caawiyo dhibaata xagga aniga haysatay waa seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano kahor bay ahayd waliba 2 sano way ka badnayd dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqada waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada فهمت أنا لا صحيح طادي بحترك مركا أنا قلت أساسا أنا بقول بقى فرايق وحاجة ما فاهم إذا حتى كبدوا ويا of course شقة ولا كلية حتى أمن حمد دار يا ما أنا وحنكون خصبنا هنا نطقوا إن أنا هلا عاوي of course إلى تبارك الله ما هيستي لكن عادي هان إن أنا وحاول حاجة وحاجة وحد نحسب مرة الإحداثها أنا قرنتي أن يدي بعتها أنا حتى هيستها إن أنا لطه hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabigeeyo oo haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa marka saale waxay taano dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteyda waan jecelahay marka dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya inaan muslimiin soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadoodu gaarto ما فهميسا marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga adreemaya kiis culus weey laakiin Soomaalidu way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay in deeqa in marka hada horta waan ka anigu makhraati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan inta badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aad dadka ku wanaagsan aad ahayn ama ba yaqaana وانا ده درسته انت ودا سعوديه nolol fara badan dadka xilliga qaanaata والله kaaga maqraati kacaya qodobka aan hadaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay hadii aan qaar kamid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxa ay leeyihiin deeqi way korbay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer wax gaadhay ay operation isku sameeyso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana comment-yada maxad ka leedahay dalmar horta ودي قصص ما يرت وعن قصلي وعن قصرت فلحنت من موجو وانا اركي وحاس مالها قرقرين لكن تا waxaan kale yahay أنا ودن كان ودقنا هاي رنت هذان كهلا برنامج شو حن كقيب قلا آل ترى بدن وحياة بدر دليل ذا اللي عيقلنا يعني كقيب قلا مر والبا مركا وحياة أنا قهرت أنت بدن أن كدول أو أن رنتي أن أدك حاجة أصارة واحد هاي وحن استعمالها هالكلمة أو أهو وحقتها قفك عطاي أهو أنا وانش على قفك وياي حتى waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiis inuu ka bixiyo sadad kale soo eeg ma garanaysaa marka aho waxa aad tahay fikrad aan isticmaalay ereygaas diyaanado kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisi wax la mariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniyaa qofku inuu qof fikradiisa ku socdo waa necbaa runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in aniga operation isku galo ilaaha maxamed sameeyay ku dhaartay nolosheeda inaan jirkeyga operation lagu sameyn waligeena aan ku fikiray ilaaha baan ka magan galay ma baahani qodobka ugu dambeeyay iyadana ka weydiiyay videogaasi aad soo saartay dadku waxa ay leeyihiin waxa bilaabmatay oo ay deeqa afro ay wadada u furtay 2019 ka wixii ka dambeeyay iyo gudihiisa in la arki doono dad aad u tiro badan oo videoyo hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن inaan u bilaabana marraba sababta waxa anigu horta mar walba u taagnaa oo aan jeclaa inaan khaldan marraba waxa aan u taagnaa waxay tahay waa dhaqankayga waxaan u taagnaa waxay tahay waa qadiyadeyda anigu aan leeyahay taasna waa diintayda taasna inaan khaldo oo tusaale xun u noqdo no ma noqonayo mana rajaynayo runtii hadii ay qaar soo saaraan maxaad kula hadday soo saaraan waxaan kula talinaa walaal iska daay usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha israfinayaan soo saalaydii rafine insha Allah israfayaa taasaan dhihi lahaa kaliya mana rajaynayo sida kala kaga fiican saana hadda rabaa kadib inaan wax ku soo saaro wallah
sidii dacwadii la yidhi maxaa ku baray baa la yidhi dayoy xageed ku baratay cadaaladda masay tiri isha cali ka laalaada marka imika waxaad leedahay usha aday ku dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay wey usha deeqa afra ku dhacdaa ku qusqaatay waa qoladays le videoya nooca kala soo maya ma umalaynaya ugu dambeyntii waa naxyaaba dararka qodaxsleed ama lagu yidhahda tiiba oo horseeday deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahadcelinaya inaad waraysigan macaawa halkan nagu siisay ugu dambeyntii deeqo maxaad kusoo gabagabeynaysaa waraysigeena kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dalmarow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa inoo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn oo baaxad weyn baan idigu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kaloo waxaa iska jira soomaalidu dhinacay u badan yihiin ahoo runtii aan aada wuxuu hubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibaya ilaahay idinkana haydi soo hanuushee waxubsada wax walba xogogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hubi maxaa la yidhaha xogogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xugminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimaan isku leenahay haddaanu dadnahay bini-aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin soomaalida bini-aadanimada lumisay war bini-aadanimadu waa beska ugu horeeya taa dhis fahmaysaa intaasaan kusoo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan kugu salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aada u qiimo badan horta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidaan walaalahay u jeclaa oo kale ku jeclaa halka qalbaan kaasi jeclahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaaliya oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taas oo waa idiin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mari u tiri video allah thank you dalmarow aan sii dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay maan raadinay waqti bay nagu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulilah waan helay videogiina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaane iska tuura waan ka codsanayaa waxaan kaloo dalmarow aan sii codsanayaa waxay tahay dad waxaa jira beijir samaystay deeqa afrooga anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban keliya ayaan leeyahay bage baa waa dhexe wiilii sameeyey bagekaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu sheergareeyo waxaan hadda siyaacaya oo meelaha maxaa la yidhahdaa xaggan baqaar waxaan arkaya leentay sawiradeeda soo qaataan waxaa idiin soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan walaal dadka ha igu dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imatalayo beenta loo tuuri lahaa youtube-yadana loo kala tuuri qof kastoo anigu horta wayda cafiyey laakiin iska bixiya youtube-yada qof kastoo youtube-ka gashatay iska bixi haddii kale cafiska qayb la soo noqonayaa waan ku dacweynaya aad baad umahadsan tahay waa facebooka deeqa iyo youtube-yadaba dhammaantood iga saara wixii hore bik waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan maya de xitaa fanaaniinta caayayaan waxay leeyihin blaaye aniga yaa khatarsan yani meelaan waxaan aniga iga suurta ma qofba qof mateli karaa qof ma mateli kara aniga ma mateli kartaan wada maanta dalmar ma mateli karo leesma mateli karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa mararka qaarkood soomaalidana waxaa israa tolo maxaa ka horey ka qayb qaadanaya ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcararaya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaalayaal waxa aad iska hor carcarlaysaa iga daaya aniga ma aha anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse xataa deeqa aadan muuse samaysteen afro iyo real iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya wuu ka ogolaanaya facebook ma ogtaha aniga kayga bagekayga bil ka horba ugu dambeysay oo wallaahi oo bilaahi in wax ku sheer gareeyo iga daayay dadka ay ku dirine aad baad umahadsan tahay daawada halka waxaan ugu dhamaaday waraysigii koobnaa
وأنا أولي دلمر يدق أفرو يقرأ قيقات برنامجك سيدا أي نبت قريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.